waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dalka iyo dibadiisa daafaha adduunka ku nool. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aan idin leeyahay maanta waa ka warqabtiin maxaan ku dhahay hadalkii uu ku hadlay Fahad Yaasiin oo baraha bulshada socda waana wax laga qajaafo oo maxaan ku dhahay nin weyn wuxuu ku hadla aanan ahayn. waxa waaye Fahad Yaasiin maalintii gabadhu ay maqan tahay 18 beri baan xafiiskiisa ugu tagay. wuxuu yiri gabadhii waxay ku maqan tahay dhinaca shabaab ay ku maqan tahay saasaan xogta ku helnay. marka 2 beri iga warsugo maamo waxaa ila socotay aqayaar nabadoono ila socday aniga kaligay ma ahayn marqaati ay leedahay 18 beri ay Ikraan Tahliil ay maqneed maalinta ayada ah oo xafiiskiisa ugu tagayno. marka maanta inuu geedaha uu madaxa ku soo qabsado ma aha falaarida Soomaali waxay ku maamaaday falaaru kaaga ma harto gilgilasho falaar gilgilasho kaaga ma harto. Ikraan waxay maqan tahay June to June waa wajeer waay. marka intaasay maqan tahay intaas dhibaatadii taalay iyo iska daba socodkii iyo oohinteydii iyo dhibaatadeydii wuu u jeeday. qof islaam ahayo quraana lay baray uu leeyahay hadduu yahay muxuu uga damqa waayay muxuu u hadli waayay meeshaas hadda nabad sugiddu madax ka ahaa nisoo madax ka ahaa. telefoon waa naga qabo waayay 2 beri ka bacdigii waana soo wici waayay waana la hadli waayay. intaas aniga baraha bulshada ka qaylinayo marqaati ka tihiin ummadda Soomaaliyeed ad marqaati ka tihiin. maanta inuu yiraahdo maxaan ku dhahay mahad salaad iyo ra'iisul wasaaraha iyo al-Cadaala iyo wiilka kaleeto maxaan ku dhahay karatay oogsan iyo saan ay tahay hal sanay maqneed gabadhan hadda bariya ka dhiman 27 June ay sanadkeeda buuxsamaysaa oo habeenka 27 ka ahayd ay ahayd wixii la qaaday oo bishaan bisheedii ah. marka maanta inuu saas yiraaha waa ku qaldan yahay waana falaari gilgilisho kaaga ma harto waa wax ku ceebo saasne wax oo bilaadanimada ka baxsan oo hadlay oo qalada oo dad ijaafaysanaya. maanta markii mahad salaad loo dhiibay meeshii asaga laga qaaday muusaas leeyahay ra'iisul wasaarahan waa ninkii xilka ka qaaday oo maxaan ku dhahay xeradii uu deganay ka rujiyay oo ka qaaday oo maanta maxaan ku dhahay dhibaatadii uu sameeyay adligeeda wax walba looga soo xirxiray. maanta marka maciil u qabaa oo ciilku u qabay muu u leeyahay maanta ayaga dileen Soomaaliyay waa kaasa ninkaas weyn oo intaas dhan wuxuu waxaas ugu hadlay bal arkab Soomaaliyay waa waxaan soconaynin waa wax ka jira aanan lahayn. maanta marqaati leedahay maalinkuu lahay gabadhii al-shabaab dilay waxa lagu dilay maxaan ku dhahay dhaytuba ka lagu dilay iyo meelahaas. haye Yaasiin Faray ku soo heray Yaasiin Faray waa ninkii shalay asaga ka horeeyo waxay ku soo ballameen waaye kolba oo waa u jeedin ummadda Soomaaliyeed. wuxuu yiri Yaasiin Faray wuxuu yiri gabadhii waxa anaka ma arkin laakiin al-shabaab dilay ma arkin laakiin shabaab dilay. shabaab markuu dilay soo ku arki soo ugu jeeday haye mana arkin uu leeyahay meel uu qaaday ma ogi mid walba wuxuu ku soo duubanaya waalidkaan naqaan aqoonis maxay naga yaqaaneen anaka maxay aqoonis noogu tareen anaka maxay noogu qabteen anaka. ummadda Soomaaliyeed waa u jeedaa dhibka uu Fahad Yaasiin uu wado uu ka gilgilanayo laakiin gilgilisho falaari gilgilisho kaaga ma hartay Soomaali ku maamaaday. waa ninkii shalay yiri shabaab ay jirtaa odayaashii aqayaartii iyo nabadoonadii waa joogaan ma dhiman waa nool yihiin naftu waa ku jirtaa. oo yiri maxaan ku dhahay 2 beri iga warsuga 2 maalmood halaysiyo waqti halaysiyo ilaa hadda muuna soo hadlin ilaa hadda uu hadalkaas oo shubankii asaga sheegay uu hadda shubmay maahane wax kale oo meeshan uu soo hadlay ma jirto. muxuu wax uga qaban waa Djibouti leegu celi warka qofka markuu sheegi rabo haday dib dhaco waa inuu qof kale u soo aqriyo warqad uu soo diro ama uu hadal meeshii uu joogo uu ka soo jeediyo oo meeshii uu noqday uu ka soo jeediyo.
war waxaan ku iri waxaan wax soconaay maahane niyo wax muuqdo ummadda Soomaaliyeed qanci kara la imo Fahad Yaasiinow gabadhaydi si ay kaaga maqan tahay adiga ma jirto wajigaadayna ku qoran tahay waxba hays madluumin oo hoos u jeesan ikraan taaliil bank qiyaamo xataa waa kula tagaysaa bank qiyaame nimankan muslim aqyaarta ah ku soo lug duubanin ra'iisul wasaaraha hadaad wax ku hubtid sanada laga jooga arinta ayada ah sanad wixii ka dhiman waa bariyo sanada laga jooga maxaad u dhihi weysay saan maxaa u dhihi weysay war wax ma ku sheega waa ka halawda tani waa ka halawday ummadda Soomaaliyeed waxa ka gadi kartid la iimooniyo oo u sheegi kartid dadku aqliyo qaba علوما جوبتو أخيارا جوبتو هوين وحقرضها جوجو وريتقوا الله ربي قرانا برتا ليدا هاي محانكو ده هاي إن مرمرسيو وحكو سعنايا معها يضد إنا كسو لوك دوبتين ما صلاة واحد وحنتاي ماشي هذيك لقا قادا لقي وإنتاس رئيس الوزراء نلقوا مرة شرف لو ميل جوجو دور شداد أوجد سيدا أوجد أسو داديه واي ورنيو إلهي كعبسو وحكو سعنايا لا يمو ماشي war hadaad gabadhii haysid isii gabadhii kuma haysto wax aan ku haysto male ummadda Soomaaliyeed ay maqal ilaahay yaa iga sareeyay subhanahu wa ta'ala wallahi billahi tallahi wa ismada ilaahay inaana ku haysanina ilaahay ugu ogeeyay rabbi ummadda Soomaaliyeed ay marqaati ka ahaada iska keen gabadhii ma weysay meelay kaaga haraysa ma jirto shalay ada al-shabaab ku sheegay ki adiga kula joogay yaasiin fariya shabaab way darra dil laha aniga intuu yimiday oo wuxuu yiri gabadhii daytu baa kay jirtaa gabadhii waxay jirtaa mubaarak intaba waa la weydiiyay Soomaali waa isla dhalatay salli ala nabi xarakatul shabaab waa iska bariyeelan shaqana ku malihinay dhahan kuna najiis ma aha wax ka reebayo ikraan taaliil halkaasay idin saaran tahay culimada Soomaaliyeed ee ka hadla dhibaatada taagan naf noola maqan maxaan ku dhahay dadkii gabadhii ku maqan tahay ay rabaan inay geedaha madaxa ku soo qabsadaan no wax soconaysa maaha hal xabo madaxweynaha leeyahay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyne shalow madaxweyne idulmiye cadaaladii oo ka jiiftay oo wax ka og yahay arinta iyada oo wax ka og yahay maxamed cabdullaahi farmaajo mudane farmaajo waa madaxweynaheeni laakiin madaxweynenimo waxba iiguma qabanin wuxuu muwaadinimadii aniga muwaadin Soomaaliyeed aan ahay meeshii aniga aan uga lahay oo muwaadinimo wuxuu iigu qaban lahay ima qabanin maxkamadii hor istaagay wuxuu ka qabtay male ninkii xil laga qaado xil siiyay muxuu ii qabtay ani madaxweynenimo muxuu iigu qabtay aqri adduun xibintii muwaadinimo Soomaaliyeed oo aniga aan ku lahay maxamed cabdullaahi farmaajo uma cafinin ilaa yawmul qiyaama إلهي أكتيسة الله حساب تمايا مدحوين مدن حسن شيخ محمود وعن كلها هاي عدالة أمد الصوماليات كعقبها هنتا يدي انتي بعضي قبض فلكي نقول عي يونقول عن أمد الصوماليات ومحمد عبد الله فرماجو يحلو فديسي أي قصة ما يسوي أمد الصوماليات صلي على النبي ميان موادن أهين أنك ميان موادن أهين يكون عن مدن مدحوين حسن شيخ محمود ومد الصوماليات وعدالة فل قبر يرمى أنت بلو علقه حتى يدب سو شيغتو سو إسكاك هذا المدحوين وعدالة فل ورب كيف كتبانيسو لا فريسو ويدي ورنا أنا كنقول تاجر ما له والبوانا لو جلجلا لبعتها أنا هيستو مدحوين ومد الصوماليات عدالة ذي كاربتا كيس كان محكمة وإنا سدق أفرتد باريس هفن أو هبايسن لغصمية أو وحي هور أي كبنان كيهين أو محان كورا كيس كان لوحي صار أي كبنانيين خبراء جوبتو حتى أجانب كجروا وإن لغصوا الدرو وإن سفي عن لو بارا أرنتان مدحوينة حسن شيقو أرنتان ليه الماها نفنا ولا إيقام مقن aniga nafna wala iga maqan marka waxaan ka codsanayaa mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsanayaa arintan inaad si degdeg uga soo jawaabto si degdeg inaad howl looga qabto oo maxkamadda sare iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo midda gobolka intaba dacwadu waa jirtaa please waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed waxay ka rabtaa cadaalad ay ka rabtaa maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu u sameeyay ummadda ku dhicin madaxweyne
وعدالتي عنقتي يراد وهر استاج ومدحوين النما ونقفيرني ومدحوين هذه ومدحوين هني وياه وفيرني الصومالي نما وفيرني وإسلام نما فيرني وبالآدم نما فيرني صل على النبي نبان نجار ومد الصومالي هذا ولا علينا وشل نقرب تاجنا نقرب استاج بليس نقرب استاج وأرنتا وحكنا وحجرت الصومالي هذا الدنيا الدافئة هذا الجو لو يراجروا وحاجروا ضد محنكو دهاي أو وحكستو كلا بارو أو نباتة كلا بحين كراجروا صل عليه انت صاوب بحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدالة ده شقيسو صومالي نمدها شقيسو.